komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland ayaa maanta soo gabagabeeyay tababar muddo u socday shaqaalaha ka howlgala hay'adaasi waxaana ugu horeynba sharaxaad ka bixiyay muhiimadda tababarkan khabiirkii tababarka bixinayay Saciid Xasan Sheekeeye intii u socday tababarkani ma aha tii koowaad wuxuu noqon doonaa ما كيو دنبيي وكيكو وبفلي أمريكا أنا كانوا بحنو إن شاء الله وسيس عندنا هذا دنبي حقيقي على دمان وحي القاعدتين أو دم استرن هذا نقف ولا مجلسة ينتو كساقين كلمشة isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha maamulka iyo lacagta ee hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga Cabdirasaaq Maxamed iyo marxaladihii uu soo maray iyo halka uu tagnay shaqaaluhu sidii ay u kala heleen waxa waxoogay faahfaahinay naga siin doona gudoomiyaha komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo afmeeray halkaasna shaqaalihii tababarku u dhamaaday shahaadooyin ku gudoonsiiyay gudoomiyaha komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland mudane Axmed Jaamac Maxamuud siin doono insha Allah sidii aad kala horeyseen ee aad participationka ku wada haydeen waxaan rajeynayaa in wax idin anfici doono uu noqdo mana noqon doono kanoo kaliya inaynu tababar ku joojinay tababaradu waxay noqon doonaan wax inoo joogtaa oo aan isku tayayno si hadii Ilaahay ka dhigo aynu inaguna qaranka u tayayno Maxamed Jaamac Mal warbaahinta SBC Hargeysa